السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وده أدي هذا ومهتم مقال كم حرب إن ندخل وده قوم مظاهرات كأبوينا التاريخ ده إبت مت سياسة ده أمريكان ككدعة أي شلي كدعي كنتم كقبل أمريكان مظاهرات كان ومركي سدحات أمريكان وكدعوا إلا هي مركي مدحوين ترامب حلك مدحتني مدى أمريكان كلو داريي بشي جانوري لباتن كيدي سنة كي لبضو كون إيا شانيا لباتنك halkudhiga mudaharaadyaddan waxaa la yiraahdaa No Kings Rally oo ah boqortooyo ma ogolin oo madaxweyne Trump siyaasadihiisa ayaa mudaharaadkan looga soo horjeeday haddaba imisa milyan oo qof ayaa mudaharaadkan shalay ka soo qayb gashay halkudhigyada ay wateen maxay ahayd midka Minnesota ka dhacayna si gaar ah ayaan u eegi doonaa in ka badan 200 oo kun oo qof ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Minnesota oo si gaar ah u xusay Soomaalida una mahad celiyay Ilhaan Cumar oo ka hadashay mudaharaadka sidoo kale maxay tiri arimahaas oo idil ayaan idin la wadaagaya balse wari horaanteedii sanadkii hore 2025 in mudaharaadyaddan ay bilaabmeen loogu magac daray No Kings boqortooyo ma ogolin madaxweyne Trump ayaa waxa uu dhaqmayay qaab sidii kaligii tali ama boqortooyo ahaan taasi oo dadku ay si aad ah uga soo horjeesteen mudaharaadkan shalay dhacay inta aan faahfaahintiisa idin la wadaagin waxa jirtay laba mudaharaad oo hore oo ka horeysay waxaana midka koobaad uu dhacay bishii June ee 6 sanadkii 2025 waxa ka soo qayb gashay in ka badan 5 milyan oo qof kii xigay waxa uu dhacay bishii 10aad ee October sanadkii 2025 waxa ka soo qayb gashay in ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka soo qayb gashay marka kii shalay ayaa wuxuu yahay kii ugu ballaarnaa marka la barbar dhigo labadii ka horeysay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa shalay kontonka gobol ee Mareykanka isku soo baxay cirifka xitaa ilaa iyo Alaska oo qabow waxa la arkay dadka oo mudaharaad sameynaya mudaharaadkan waxa looga soo horjeedaa siyaasadaha madaxweyne Trump dagaalka Iran sicirka shidaalka iyo waliba raashinka la cuno oo sare u sii kacaya iyo arrimo fara badan oo siyaasadaha madaxweyne Trump ay dadkan uga soo horjeedeen asaasayaasha mudaharaadkan No Kings Rally waxa ay leeyihiin ay laga yaabaa inuu noqdo mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee siyaasadeed ee taariikhda ebed hal maalin la isku soo baxo sida hadda muuqata magaalooyinka Memphis New York Portland Chicago LA Minneapolis iyo sida macrifyada kala duwan ee Mareykanka ayaana dadkan ay isku soo baxeen dadkan xitaa waxay wateen dastuurka Mareykanka oo We the People ayay muujinayeen sida Philadelphia oo kale dadkii isku soo baxay maadaama halkaasi lagu saxeexay dastuurka Mareykanka ma ahan oo Mareykanka oo kaliya laakiin caasimadaha Yurub qaarkood mudaharaadkan uu ka dhacay sida Roma oo Talyaaniga Madrid oo Spain Paris oo Faransiiska Athens oo Greega iyo waliba London oo Ingiriiska mudaharaadyada dadkan waa isku soo baxeen bal sawirkan fiiri waa xeeb ku taala gobolka California dad ayaa waxay sameeyeen calaamadan oo ah Trump must go now calaamadan waxa sameeyay waa dad isku tagay ayaa calaamadaasi sameeyay sidoo kale halkudhigada dadku ay wateen waxa kamid ah No ice uma baahnin no war dagaal uma baahnin iyo No Kings boqortooyo Mareykanka ugama baahnin marka mudaharaadkan oo ah kii saddexaad oo ah kii ugu ballaarnaa ee Mareykanka ka dhacay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay aqalka cad waxa ay ku tilmaameen mid ay soo qaban qaabiyeen dad yar isla markaana dad lacag la siiyay marka 8 milyan oo qof dad lacag la siiyay ma noqon karaan waliba gobolada codadkoodu isbedbedelaan ayaa ugu darnaa iyo waliba meelo Republicaanku ay ku awood badan yihiin arrintan waxay tusaale cad u tahay doorashooyinka xilliga dhexe ee soo socda ee dhamaadka sanadkan dhacaya November oo Congress-ka Mareykanka lagu tartamayo hada talaadii la soo dhaafay waa anagii ogeyn gabar 40 jir ah oo dimuqraadi ah in ay ka soo baxday degmada qasriga madaxweyne Trump uu ku yaalo ee Mar-a-Lago gabadhan oo magaceeda la yiraahdo Emily Gregory waxay ka adkaatay John Meblis oo Trump uu taageeray xitaa maalintii doorashadu ay dhaceysay oo bartiisa True Social ku soo qoray hal loo codeeyo ninkaasi Trump isaga nafsad ahaantiisa doorashadaasi waa codeeyay marka degmadii gurigiisa uu ku yilay ayaa waxa laga soo doortay xubin dimuqraadi ah hadda toddobaadkan sii dhamaanaya iyadoo la leeyahay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegana 29 degmo oo Republican laga soo dooran jiray ayaa dimuqraadi laga soo doortay marka arrintaasi fariic cad ayay waxay u tahay maamulka madaxweyne Trump uu hogaaminayo dhinaca gobolka Minnesota shalay waxa isku soo baxay magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul dad ka badan 200 oo kun oo qof
dadkaasi waxa ay wateen sawirada Rene Good oo ciidamada ICE ee Minneapolis ku dileen 7 bishii January ee koobaad ee sanadkan iyo Alex Brady oo isagana ay dileen ciidamada ICE 24 bishii January ee horaantii sanadkan marka cadaalad ayayna u dalbanayeen halkaas dadka ka hadlay waxa kamid ahaa gudoomiyaha gobolka Tim Walz xildhibaanad Ilhan Umar Senator Bernie Sanders sidoo kale waxa kamid ahaa fanaanka caanka ee Bruce Springsteen oo Trump aad uga soo horjeeda xilliga ciidamada ICE ay ka wadeen howlgallada magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxaa jirtay hees uu soo qaaday oo la yiraahdo The Streets of Minneapolis oo ilaa ku dhawaad 7 milyan hadda qof bartiisa YouTube-ka ay ka daawadeen heestii ayuu dadka u qaaday shalay waxaa kamid ahaa sidoo kale Jane Fonda oo iyaduna ka soo qayb gasho dadka caanka kamid ah halkaasi hadal ka jeedisay haddaba gudoomiyaha gobolka Minnesota hadalkii uu halkaasi ka jeediyay waxa uu si gaar ah u amaanay dadka Soomaalida oo uu sheegay garabkooda marnaba inaysan banayn doonin waxyaabihii halkaasi uu ka sheegay gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa kamid ah hadaladiisii waxa uu yiri waxa laga yaabaa in cimiladeena ay xogaa yar ay qabowdahay laakiin dadkeenu waa ay diiran yihiin mana cabsadaan ayuu yiri sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay arrintan maadaama aysan wali dhamaanin fariintan ayaan waxaan doonayaa inaan u diro maamulka madaxweyne Trump wuxuu leeyahay weligiin naxariisteena ha ku qaldina inaan nahay dad tabar daran marka wuxuu yiri maadaama aan naxariis badan nahay ha u maleynina inaan nahay dad aad u tabar daran marka wuxuu yiri cadaalad ayaan u dalbanaynaa Rene Good iyo waliba Alex Brady waxaana sidoo kale cadaalad u dalbaynaa ayuu yiri qof kasta oo dhibaato ay ka soo gaartay amaba ku dhaawacmay howlgalladii ciidamada ICE ay wadeen waxaana uu sheegay arrintan weligeen ma hirmaami doono waxa ay halkan ka sameeyeen waxaana sidoo kale uu sheegay wuxuu yiri waxaan doonayaa in aan fariin u diro community-geena ama bulshadeena soo galootiga ee Minnesota ku nool waxa uu yiri waan idin aragnaa waan idin maqalnaa waana idin qiimeynaa waana idin jecelnahay waxaana uu sheegay waxa uu yiri qiimo ayaad ku soo kordhisaan gobolka Minnesota waxaadna qayb ka tihiin dunta wanaagsan ee gobolka Minnesota waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan idin sheego hadalkan waxa uu yahay hadal aanan ku dhehlahayn qof kamid ah dadka aqalka cad jooga ayuu yiri sidoo kale waxa uu yiri waxaan ku darayaa arrin kale oo qaasa waxaan doonayaa si gaar ah inaan u xuso ayuu yiri bulshadeena Soomaalida ee gobolka Minnesota ku nool marnaba dhinaciina ma banayn doono ballanqaadka aan idin sameeynayna waxa uu yahay yiri in Soomaalida ku nool gobolka Minnesota caruurta aad awoowayaasha aad u tihiin halkan ay sii joogi doonaan marka ninka hadda aqalka cad jooga oo Trump ula jeedo taariikhdiisa qashinka lagu daro waliba ninkaasi wajiga jaalaha leh ayuu yiri marka taariikhdiisa qashinka lagu daro caruurta aad awoowayaasha u tihiin halkan ay sii joogi doonaan gobolka Minnesota oo dadka Soomaalida ah ula jeedo haddaba gudoomiyaha gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri Our weather may be a little cool but our people are warm and we're fierce and my message because this is not over don't ever mistake our kindness for weakness we demand justice for Rene Good and Alex Brady we demand justice for every single person who was hurt or traumatized we will never forget what they did here. And I have a message to our immigrant community here in Minnesota. You are seen, heard, valued, and loved. You add value to our state. You are part of the fabric of what is good about Minnesota. And I have to tell you, that is a hell of a lot more than I'll say about anybody in the White House. And I will add a special thank you and a special acknowledgement that we will never leave the side of our Somali Minnesotans. Here's our pledge to you. Our Somali Minnesotans, your great-grandchildren will still be here when that orange clown is in the dustbin of history. You will be here. dhinaca kale xildhibaanad Ilhan Umar ayaa iyaduna hadal qiiro leh halkaasi ka jeedisay oo dadka isku soo baxay oo 200,000 ka badan Minnesota shalay mudaharaadka No Kings Rally la hadashay waxay Ilhan tiri waxaan markastaba u dhaaranaa ayay tiri dastuurkeena iyo calankeena laakiin uma dhaarano shakhsi amaba boqor sababta aan halkan isugu nimidna waxay tahay tiri dimuqraadiyadeena ayaa waxa naga qaatay
Trump isla markaana waxa uu burburiyay waxyaabaha aasaaska u ah Mareykanka ee wax wanaagsan ka dhiga waxa ay sidoo kale sheegtay waxa uu isku dayay ayay tiri inuu noocaga jugleeyo na cabsi geliyo isla markaana na kala qaybiyo laakiin waan isgarab istaagnay mid waliba midka kale ayuu garab istaagay isla markaana marnaba jilibkeena ma aanan u raaricin ayay tiri maamulka madaxweyne Trump waxana ay tiri Minnesota waxa ay tahay mid si gooni ah loo sameeyay waxana sidoo kale Ilhaan Cumar hadalkeeda ay ku dartay waxa ay tiri nama cabsi gelinayaan dadka noocaga jugleynaya maxaa yeelay Minnesotadii awoodda badneed ayaan nahay waxana sidoo kale Ilhaan Cumar ay tiri markastaba waan istaagi doonaa isla markaana waan soo bixi doonaa isku soo bixi doonaa maxaa yeelay waxa aan diidayna ayay tiri in mustaqbalkeena uu noqdo mid cabsi lagu maamulo musuqmaasuq iyo waliba qalalaaso waxana sidoo kale ay sheegtay waxa aan nahay wadan aysan boqortooyo ka talin oo wadan sharcigu uu ka taliyo iyadoo intaasina ku dartay in markastaba dadka Mareykanku ay isgarab istaagi doonaan isla dagaalami doonaan waliba si nabdoon oo awood ay ku jirto si ay u ilaaliyaan dimuqraadiyadooda Ilhaan Cumar oo iyaduna hadalladaasi ka jeedisay mudaharaadkii shalay No Kings Rally waxa ay tiri In the United States of America we pledge allegiance to the Constitution and the flag not to a person or a king but we are here because Donald Trump just has not chipped away at our democracy. He has taken a wrecking ball to the very foundation of what makes America great. He has tried to intimidate Minnesotans. He has tried to make us afraid. He has tried to divide us. But we stood strong. We have had each other's back, and we have never bent the knee. Because in Minnesota, we are built different. We do not cower to bullies. We are Minnesota strong. We are going to speak up. We are going to continue to show up. Because we refuse to believe in a future ruled by fear, corruption, and chaos. We are not a country of kings. We are a country of laws. We are a country where people look out for one another. And we are a country that will fight peacefully, powerfully, and persistently to protect our democracy. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono